بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel baad joogtaan. waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan. waxaan maanta u soo galay barnaamijkan xasaasiga ah dagaalka ka socda magaalada Boosaaso oo maanta lagu micnayn karo inuu yahay mid nasiib darro ah. runtii aad iyo aad baan uga xunnahay. waa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka xumaatay. waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed gaadhay sharafteeda iyo karaamadeeda, dhaqaalaheeda iyo nafteedaba haddii alla idin ma garata. walaalayaal, arrintan waa arrin aad iyo aad looga xumaado. waa nasiib darro maanta iyadoo la joogo qarniga 21aad in ummadda Soomaaliyeed ay isku dilayaan maanta dagaal xabad rasaas ay ka dhacayso magaalooyinka. waa arrin aanan filayn inay maanta sidaas u dhacayaan. dad mas-uuliyiin ah ayaa waxaa muuqata inay ku dhex dagaalamayaan ama ku dul dagaalamayaan shacabka iyo maatada. waa nasiib darro. caruuraha, haweenka, dadka berimageedada ah oo xabaddu ku socoto, waxaan ugu baaqahayaa in laga daayo, in laga joojiyo, in loo turo dadka shacabka iyo dadka maatada ah. haddii dadku ay ka maarmi waayeen inay dagaalamaan, iyadoo dagaalba iminka qarniga kala joogo aad iyo aad u yahay wax looga xishoodo, aadna aan uga danqanayno, ha ku dagaalameen meelaha baadiyaha iyo miyiga intay tagaan. halkaa ha kusoo kala baxeen. laakiin ciyaalka iyo haweenka iyo shacabka iyo dadka magaalada jooga waxaan codsanayaa oo mar labaad ugu baaqahayaa in dagaalkaas laga daayo, in dadka masaakiinta loo turo, in dhibaatada socota maanta magaalada Boosaaso ka socota oo waxaan aad iyo aad mataqaanaa noo taabanaysa. waa dhibaato maanta dadka Soomaaliyeed oo dhan wada saameyn doonta. nina kuma farxi karo. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu dhibaatada naga dulqaado, in dadka Soomaaliyeed oo siyaasiyiinta iyo kuwa maanta arrimaha ku howlan in ilaahay soo hanuuniyo. waxaan walaalayaal ka codsanayaa mar labaad dadkaasi inay dagaalka iyo dhibaatada ka daayaan dadka shacabka ah. anigu aqoon ayaan leeyahay halkaas. dadka joogaa maaha dad dhib jecel, maaha dad dagaal jecel, maaha dad taageera waxyaabaha noocaasa iyo barnaamijyada iyo dagaalka iyo waxaas. dad gudbay oo xadaariyiin ayaan ku ogaa halkaa. dad ummadda Soomaaliyeed dadka ugu ilbaxsan ayaan ku ogaa. dhalinyaro waa arkayay aamoodo inay ku faraxsan yihiin oo halkaa kasoo duubaya warar, iyagoo aamoodo inay dabaaldegyo ku jiraan oo sidii dad dabaaldegahaya ay yihiin. mataqaanaa waa arrin aad iyo aad aan uga xumaaday. walaalayaal, saraakiisha ciidanka BSF oo maanta halkaasi jooga oo ku faraxsan inay ama dagaalamaan ama ay sii haystaan kursigooda, gaar ahaan ninka la yihahdo Maxamuud Ismaan Diyaano, 30 jir janan ah oo 30 jir janannimo ku qaatay. waxaan aaminsanahay inay jiri lahaayeen wax kale uga wanaagsan inuu sidaa sameeyo. haddii asaga aan shakhsiyadiisa ka hadlo, ninka dhalinyarada maanta oo 30 jir oo jananka ah mustaqbal iyo fursado kale ayuu geli karaa oo ku noolaan karaa ama xilal kale ayuu ka heli karaa dalka Soomaaliya. maanta inuu isku dhajiyo maanta kursi laga qaaday oo nin kale loo magacaabay
inuu isku dhajiyo wax uga wanaagsan inuu asagu mataqaanaa intuu fahmo mustaqbalkiisa sarkaalnimo kiisa janannimo iyo kiisa sharafeeda mustaqbalka dambe waxa kana inuu iskaga tago ka wareejiyo maadaama muddo badan uu meesha fadhiyay oo isagoo fiicnaan lahayd waxaan oran karaa wuu ku ceewoobay asagoo maanta 40 gaarin oo janana maanta oo waxa weeye haddii ilaahay iska daayo cimrigiisa waqti badan ka hadhay xilal badan oo kuwa ka sarreeyana loogu hanweynaa maanta inuu qabsado ka shaqeeyo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ugu adeego asaguna magac iyo maamuus ka helo hadduu maanta ciidanka BSF uu maanta ku dagaal gelinayo kursigayga aan haysto ii difaaca aad iyo aad bay sharaf darro taas u tahay waa hubaa intaa inuu ka aqal badnaa ayaan filayay ma garan karo waxa maanta asaga ku khasbaya inuu sidaas u ficiltamo sidaa daraadeed dadka arrimaha iyo waxyaabaha la mid ah ku taageeraya maxamuud cismaan oo kuwa beejlaho aan arkayay iyagu mataqaanaa inay ku faraxsan yihiin qaabkay doonaanba ha u taageeraan in maxamuud meesha sii joogo puntland meesha la yidhaahdo dad badan ayaa kasoo shaqeeyey dad badan ayaa ku hawlanaa muddo fara badan nabadgelyadeeda iyo waqti badanna usoo horay dad badan ayaa usoo gaajooday usoo dhibaatooday in qof shaksi laga qaado shaqada uu ku marmarsiyoodo meesha waa usoo dhibaatooday shaqo badan baan kasoo qabtay muddo badan baan fadhiyey wuxuu la mid yahay waan odhan karaa kaasi kuwa dee malaayiin qof ama kumanaan qof oo saraakiilah kuwa askara kuwa mataqaanaa shacaba qof walba oo reer puntland maanta puntland waxba uu soo qabtay ayaa la odhan karaa kuma faani karo qofku wixii uu soo qabtay waa ku mahadsan yahay laakiin anaa shaqadaas sii joogayo meesha tan muddo badan baan fadhiyay aabbahay baa fadhiyi jiray iyo walaalkay baa joogi jiray qofka bini aadanka ah wax reer puntland asmacayaan maaha wax dadka Soomaaliyeed ku faraxsan yihiin maaha waxaan mar labaad ka codsanayaa dadkaas in dagaalka iyo xabadda laga daayo dawladdu inay tartiib iyo nidaam sahlan qofka shaqada hadduu diiday iyo qaab policy loo isticmaalo ayaa wanaagsan marnaba magaalada Boosaaso dagaaladu ka dhaco waan ka soo horjeedaa mabda ayaguna sidaa weeye insha allahu xaaladaha soo socda iyo barnaamijyada soo socdana wixii kasoo kordhan waan idinla socodsiin doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu